wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa waxa uu booqasho ku tagay shalay gelinkii hore magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud iyadoo halkaas si diir loogu soo dhaweeyay soo dhaweynta kadib kulamo hordhacaya waxa uu la qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo madaxa xukuumadda Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan kaas oo looga hadlayay dhamaynta khilaaf ku dhaxeeya dowladda dhexe iyo maamulka Galmudug xalay ayaa markale mas'uuliyiinta waxay kulamo ku yeesheen xarunta madaxtooyada Galmudug ee Dhuusamareeb waxaana kulankooda u qaatay in ka badan 7 saacadood wararkaynu ka helino magaalada Dhuusamareeb ayaa waxay sheegayaan in kulanka intiisa badan looga hadlayo waqtiga dhacayso doorashada Galmudug oo isku maandhaafsan yihiin madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Galmudug kulankooda kadib ayaa waxa la filayay in si wada jir warbaahinta ula hadlaan wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ase yeeshee wasiirka arrimaha gudaha waxa uu soo gabagabeeyay safarkiisii magaalada Dhuusamareeb waxa uu ka soo duulay garoonka diyaaradaha Ugaas Nuur ee magaalada Dhuusamareeb ilaa iyo hadda lama oga go'aanada rasmiga ah ee labada dhinac ay isku afgarteen oo warbaahinta lama aysan wadaagin hase yeeshee waxaa jira warar hoose inuu helayno kuwaas oo sheegaya in madaxda ugu sarreysa dowlad goboleedka Galmudug shuruudo adag ay hordhigeen wasiirkuna dib ula soo laabtay shuruudihii madaxda ugu sarreysa dalka